qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland kuna abtirsada xisbiga talada Somaliland haya kulmiye taabacsan xukuumadda Somaliland ayaa shir jirayd oo ku qabteen xarunta golaha wakiilada Somaliland waxay eedeymo u jeediyeen gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland iyagoo sheegayna in uu ku tuntay sharciyadii u taalay golaha wakiilada gudoomiyaha golaha si Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro waxaana sheegeen xildhibaanadani inay keeni doonaan mooshin xilka lagaga xayuubinayo gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland xeerkii aanu gudbinay asguru ansixiyay 4 mudane oo ugu codeeyay inaan xeerka loo gudbiyay guurtidu aanu ahaynkii ee uu yahay mid ka gedisan waxaanu soo qaadnay xeerkii asalkii ka yimid xukuumadda iyo xeerka uu gudoomiyuhu gudbiyay ayaan soo qaadnay waxaanu ka soo saaray qodobada halka ku qoran ayaanu ka soo saaro 9 page ka kooban oo aanu ku soo minguurinay sidii golu ku ansixiyay iyo sidii uu gudoomiyuhu wuxuu ku gudbiyay nooca ku gudbiyay ayaanu ku soo minguurinay waxa kale halkan ku haya 9 qodob ayaan idin sheegayay oo ka kooban 4 iyo 4 dambe oo ayaguna intii golu codeeyeen markii aan ogaanay inaan xeerka la gudbiyay ee golaha laga gudbiyay aanu ahayn muxuu ahaa kii loo codeeyay annaga waxaan ugu noqotay fajac iyo waxaan yani confusion baan qaadnay waxaan garan weynay waxa kalifay in arrinta noocaasi ay dhacdo halkan khiyaamadan qaran ee dhacday inaga oo ka wada hadalla mooyaa golaha hadii la furo waxa koowada imanaya waa impeachment-ka waxa koowada imanaya waa impeachment-kaagu waayo wixii lagu impeach kareyn lahaa ee xilka lagaga qaadi lahaa ayaad ku kacday adoo iska maydha oo banaanka soo dhiga mooyaane haddaad isku daydo gole inaad hogaamiso ku talagal in lagu impeach kareynayo wabillahi tawfiiq dhanka kale qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada kana soo jeeda xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa dhankooda iyagu waxay ka difaaceen eedeymaha ay u soo jeedinayaan xildhibaanada kulmiye gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Ciro waxaanay eedeymo culus u jeediyeen iyaguna dhankooda gudoomiyaha golaha guurtida ay ku eedeeyeen in uu jabiyay sharciyadii u dhaxaysay labada gole ee wakiilada iyo guurtida waxaanay carabka ku dhufteen xildhibaanada xisbiga wadani inay keeni doonaan mooshin ka dhan madaxweyne Siilaanyo hadii la keeno mooshin ka dhan ah gudoomiyaha golaha wakiilada waxay yiraahdeen hadii gudoomiyaha golaha ugu yeero kalfadhi aan caadi ahayn waxaanu keenaynaa mooshin xilka xayuubin oo lagu ridayo gudoomiyaha golaha wakiilada oo aanay wehelin labada gudoomiye ku xigeen hadii ay xurguftii dib u istaareen xurguftii diyaar baanu nahay inaanu anaguna xurguftii dib u istaarno qaniya ka fujisa maxaanu sameeynaa nimankan iyaga haysta xukuumadda iyaga lacagtii haysta iyaga ciidankii haysta iyaga golihii gurtida haysta hadii ay keenaan xilka xayuubin gudoomiyaha waxaanu keenaynaa xilka xayuubin madaxweyne oo aanu qiil u hayno madaxweyne daalan oo aan doorasho gali karin madaxweyne muddo kordhin doonaya madaxweyne kala oranaya ma sharaxni kala waa sharaxnay salaba uu isku hortaagay golihii inuu xeerkii u qaybiyo xeerkii loo gudbiyay ee waliba degdeg loo doonayay ee awgeedeen in doorashadii fooda inagu soo haysay xeerka u xanibnayd uu is hortaagay salaba golihii si muu qaybin uu soo odayga ka ahaa intuu soo hor fadhiistay ayuu xildhibaano golaha ka tirsan sida warbaahinteedaba ka maqasheen oo cabanaya ayaa noo yimid xildhibaanadaas waxay ka cabanayaan in leeyahay xeerka waxba qaldan loo soo celiya sidaas darteed gelimayno xeerkii waxaanu isaga celinaynaa golihii wakiilada waa sharci darro weey odayaashii uu foofdaran habaabiyay aqalkii guurtidana uu foofdaran habaabiyay qaladna uu ku sameeyay sharci xaqna uma lahayn inuu yiraahdo cabasha nooga timid xubno golaha wakiilada kamid ah isagu maxkamad ma si cabashada ugu yimaada ma guddigii wuxuu noqday joogtada golaha wakiilada cabashada cid loo keenay waa anaga weey guddiga joogtada golaha wakiilada cabashada iska leh taana uu ku qaldamay nidaamkii sharci ee labada guri isugu gudbin jireen Saleebaan uu ku qaldamay fariimaha kulkulul ee warbaahinta la isku marinayo ayaa u muuqda mid
dib u istaaraya khilaafkii cuslaa ee ka dhex jiray golaha wakiilada Somaliland oo muddooyinkii u dambeeyayba ahaa dhuxul dambe sugan. Mukhtar Ismaaciil Cali, Samsa TV, Hargeysa.